waxaan u malaynayaa waxa aynu maanta u joognaa halkan waa xafladda qalin jabinta ee dafcadda toddobaad ama kooxdii toddobaad ee madrasatu Abi Bakr Siddiq ay soo saartay oo ah ardada dugsiga sare uma baahna turjumaan sida aan filayo waayo iyaga ayaa ku hadlay luqadihii oo dhan waxay ku gabiyeen af Soomaali inay af Soomaali ku gabiyi karayaan ma moodaynin laakiin de hortiinay caanaha idinku waayal hortiisa caanaha loogu badxaaye rag badani af Soomaaliga aan maqlayay waxaan rabay in ay aad iyo aad ay indhaha ugu taagaan laakiin miyaa la garan waayay ma ogi baalka af Soomaaliga hawaa tagaye warnimayow sidan ka dahaya intii aynu afka kala naashnaashaynay ayaa af Soomaaligi tagay laakiin gabadhu way gabayday wax badanna way sheegtay tusaalooyin fara badan bay ina siisay de waxaan leenahay xanay ku had xaasidow ku jab waxaan leenahay ishii bugtaay ku bikaacso intaasi haday arar iyo iga tahay maxaan ku dhaahdaa hadalka bilowgiisa madrasadan ku soo dhawaada waa madrasatu Abi Bakr Siddiq magaceedu maanta ma cusba muuqaalada sidan oo kala ah oo laga soo tabiyayna maanta koow ma aha laakiin hadaad maanta uun ka soo qayb gashay waxaa la aasaasay sanadii 1991 ama 92 ayaa la aasaasay waxaana loo aasaasay in ay aqoonta iyo culumta ay ka haqabtirto maxaan ku dhaahdaa jiilka soo koraya oo aan kuba maahmaahi karayo maanta ceelo uma qodna cidina uma maqna hase yeeshee Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa saddex waxyaalood ayay sheegaan waxay dhahaan waan dad yarahay dagaalka loogama haro waxay dhaheen waan duunyo yarahay deeqda loogama haro waa arin aad u muhiim ah xoolahayga yar inaad deeqda uga hadho maaha waan dad yarahayna dagaalka loogama haro maahmaahdaasi marka aynu fiirino waxaan ka soo bilownay meel aad u adag dadka qaarkood waxay lahaayeen talow suuragal ma tahay in macnaha aynu horu margaadno oo madrasadu ay sii socoto laakiin bi'aawni Ilaahi subhanahu wa ta'ala thumma bimusharakati almujtama' alsharifi fi tanmiyati hadhihi almadrasa madrasadaasi wata socoto oo gaadhay kooxdii toddobaad waxaan rabaa marka Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa meel hal lagu qalay mana hilib yara mana hadal yara oo hilibka yaala dadka oo dhan uu deeqaya hadana nin waliba wuxuu ka baqayaa in la qadiyo madrasada iyo dadka madaarista ku jira hadee waxay u dhaan waxaad u barateen wacdi culimo waxsiiba u dambaysa anagu maanta waxna sidii idin oranayno laakiin waxaan idin dhahaynaa wixii aan ku dadaalnay aad idina ku dadaasheen nala arka waa kuwane hadaa tidaahdaan cusbada u badiya waxaan leenahay hadda jaabka gacanta geliya waayo Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa iskaashato ma kufto waxay kale ku maahmaahdaa kabxuma ma hare kablaawa hare ninka kabaha xunxun ma haro kablaawu laakiin wuu haraya waxa weeye marka waan soo kufkufnay waan soo kufaakacnay waa joognaa ilaa ay hadda ninba waxa la yiri wuxuu yimid martibu ahaayo Soomaalida dhaqankeedu way kala duwan yihiin wuxuu yiri reer waqooyi buu ahaayo koonfur buu soo martiyay reer koonfureedku 4 saac bay wax cunaan habeenkii iyo 3 saac reer waqooyigu waxay u badan yihiin 12 saac marka la gaaraba iyo 2 saac marka la gaaraba inay iska casheeyaan raalli hadaad xoogaa xajiin ka dareenteen waa iska kaftan marka ninkiisu u fadhiyay ayuu wuxuu isiri war malaha reerkani wuu ku qadiyay wuxuu war reerkiyow war wallahi ma seexana waan soo jeedaa war waan joogaa anagu waxaan leenahay ardayda iyo macallimiinta iyo waalidiintaas intaasi way iska war haysaa intaasi waa inta badan ba hawsha ku jirta waxaan leenahay dhibaatadana haysata waxa ugu badan waalid intuu arday ku keeno iska taga on sooba noqonin markay taasi dhacdo waxa la dhahayaa ardayda guryaha joogta uuna dhibay war maan dhow aan idin ducayna macallinka u geeya war ninka intuu idin dhiba aad noo keentaan oo maanta idin akhriyay quraanka idin akhriyay oo codka tajwiidka idinku akhriyay oo af carabeedkii ku khudbeeyay oo aad maqlayseen oo idinka kaafiyo doono masaajidka khudbadiisii iyo tacbaanimadii oo af Soomaaliga idin ku hadlayo oo idin tarjumi doono idla turjumaada jeceshiina
oo af Soomaaliga ku gabiyay oo murtida iyo gabayga tusaale idinku siiyay wareede waxaan leeyahay wali dariiqaasi ma dhawa ninkii awrka raray wuxuu yiri yaani doobay waa dhul koonfure mana dhawa dhul hiiraan waa loo cawa dhaxmeeya oo macnaheedu ay tahay doobay waa dhul koonfure marka wuxuu joogay meel shishe dhanaana waa balad inuu dhanaana balad yahay daadba waa taqaan hadaad garan weydo juqraafiga ka fiiri waa lagu sheegayaa ama macnaha mobilada iyo dhulku ku inkaaran yahay ka weydii dhanaana waa balad doobay waa dhul koonfure mana dhawa dhul hiiraan waa loo cawa dhaxmeeya ilmahani waxay u baahan yihiin tababar waxay u baahan yihiin wax cilmi barid waxaan idin ka rabnaa marka u horeysa horta ma anaga seexanina ma soo jeedaan wali waa joognaa midaas waa iga dardaaran mar labaad ardaygii aad adigu lahayd wuuna dhibay guriga ha ka tago oo aad caydnaysa ardaygii waxaad aragtaa halkan meeluu kaga faa'iido badan yahay male maxaa jira maalinta yawmal qiyaame inuu ilaahay ku bariyo markaad dhimato oo dabadeedna lagu daro miisaanka xasanaadkaaga oo ay ku noqoto arin jaariye ah ayaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala wax badan baynu xoolo gelinay waxaynu ka qayb qaadanay barnaamijyo badan waxa soo dhan waxaan filayaa wax badan laga ma helin laakiin ninkii wuxuu yiri ninkii ilaahay kuma sabadiday sac gardile miyaan gardi kale ku dari waay oo macnaheedu yahay maanta waxaan oranayaa kaliya aabow hooyo maad ku tiraahdid waxaan anigana waxba ii dhimayn anigana wax ii taraya adna waxba ku dhimay waa maxay wiilka hadhuubka loo buuxsho waxaan leenahay wali xagaas aan u soo jeednaa waxaan bedelaynaa farsamadii baan bedelaynaayo madrasadii waxay noqotay madraso weyn hawluhu aad bay u badan yihiin cid aan dadweynaha ahayn ilaahay ka sokow subhanahu wa ta'ala waxaan ku tiirsanahay kaalmada dadweynaha waxaan rabnaa in ay sideeda u socoto waxaan rabnaa madaaristu markii ay muddo dhisan tahayba way burburaysaa in dhismaheeda laga qayb qaato cid kale oo wax laga sugayaa malaha waxaan rabnaa inaad nala dhadhamisaan cuntada aan karinay haddii ay cusbada ku yartahay inaad nacaayin eedna tilmaantaan haddii aan ilmaha waxaan ku leeyahay qaar baan waxaan ka maqlayay maanta waxaa dhammaaday halgankii hadduuba bilowday halku ka bilowdayba dugsiga sare markaad dhammayso indhuhun baad kala qaadaye ragga la tartankiisii iyo kartidii dadnimadii lagaa rabay hadday koow tahay haddaad bilowdayba marka waxaan leeyahay dariiqaasi waa dariiq dheer qalimada ha dhigina buugaagta ha tuurina muxuu ahaay maanta idinkoo qurux badan baad naga tegaysaan miisaankiina haddii la meel la idin miisaankiina waad cayilantihiin sababta waa maxay waxa harkanaad ku jirteen subaxdii intaad soo kacdaan baa raashin la idin siinayay markaasaa ha dhicin ha jabin la lahaa waxaan filayaa markaa takharujtaanka bacdi oo dadweynaha aad u gashaan idinkoo caata abaalayd arkay waad caatoon doontaan maxaa jira guryaha xaaqidoodii iyo weelka dhaqidiisi iyo maxaan ku dhahdaa dayrkii gabdhuhu ay jeclaayeen weynaa xaaqidiisi iyo geedkii cali garoobka ay iska soo daadanaya wax badan baa jira hadaad caatowdaan anagu waa idin roonayna ogaada iskuulka inta lagu jiro waa meel lagu naaxo marka bari shaqo la idin diro oo jirikaamada jiidaan oo caaga riixdaan yaan idin miisaami doonaa ilaa hawl baa la idin ka rabaa dad badan baa waxay leeyihiin caruurtayda iskuulkay jirtaa nin baa yiri war ninka soo ordaya igu sir wadaanta ii qabo markaasuu yiri war ninkii iman waaya muxuu ka waday war wiil xala dhashay ahaa marka ninka hadda secondary ka baxay nin baa sugaya waxaad yeelaysaan hawshii la idin diray iyo dadweynihii iyo wixii aanu idin dirnay aqoon-yahankii lagu daalay baa tiina deynka soo celiya waxaan rabnaa inaad ka qayb qaadataan bulshada cilmigeeda iyo waxbaridda iyo mataqaana taageeridda mataqaana fidinta diinta islaamka insha Allah waxaan ku soo koobayaa hadalkayga inaan gaabiyaan jecelahay waxaan ku soo koobayaa 3 eray waxaan la hadlayaa hooyo waxay tiri wiilkeedii oo ila hadlaysay ayay la hadashay anna hooyaan iska dhigaya marka halka taagana war bal aan kula hadlayo wiil yahow i dhageyso waxay tiri diiriyow kii hablaha soo dugsiyeeyo hooyo gabdho u dhali jirtay baa wiil dhashay waxay tiri dhageyso diiriyow kii hablaha soo dugsiyeeyo alla dayo waxaan hooyo kaaga digay fariidka danseega doqon xoolaha ka roon dumarna waa bele kay duufsadaan noqon ayaad ku duloobeen aqalkay dadka u dhisteen waxaan idin leeyahay wiilashi baan la hadlay waxaan leeyahay wiilalow iska ilaaliya mujtamaca dhaqamadiisa xunxun iska ilaaliya inaad ku degdegtaan
nolosha aydan macnaheeda garanayn waxaa la idinka rabaa inaad culimo noqotaan waxaa la idinka rabaa inaad hogaamiyayaal noqotaan waxaa la idinka rabaa inaad mustaqbalka hawl weyn qabataan hooyo wiilkeeda iyo gabadheeda way jeceshahay waxay ku tiri markay nala hadlaysay waxay ku tiri ninkii dila oo dagaala ninkii dila oo dagaala ninkii duur kulul ku jeexa asaan diinta u dhigaynin asaan duunya u diraynin dagaal baa naga dhaxeeya annagu markaan ilmaha gargaraacnay hooyaanu ka haysanay maxay amar baan ka haysanay asaan diinta u dhigaynin diintaan u dhigaynay marka haddaan yaro ulaynay maamadaa noo ogol dadka intiisa kale ninkii dila oo dagaala ninkii duur kulul ku jeexa asaan diinta u dhigaynin asaan duunya u diraynin dagaal baa naga dhaxeeya wiilka ayaan rabaa inaan la hadlo waxaa sabi ilma ah hooyadu dusha ugu sidaa sadka loogu koriyaa abaal laga sugaayo hooyo iyo aabba waxay kuu korinayeen waa maxay oy sadka kugu korinayeen oy dusha kugu sideen in abaal lagaa helo adiga waxaan kaa rabaa inaan lagugu mahmaahin berri yacni habaysowguga han laguu qabay haan laguu tolay oon lagaa helin yaad la hoogto yaad la horan tahay haddii aad gayn weydo hadday booyad biyo ah oo ay ku qoran tahay clean water inagoo haraadana aynoo timaado oo aynu ku yaacno oo darawalka wada u dhaho biyo kuma jiraan waxaan ku dhahaynaa habaar kugu dhac maxaad nagala soo doontay bahasha maran waxaan idin leeyahay xoolaha iyo caruurta iyo dadka ilaahay ha inoo barakeeyo diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ina fahansiiyo dhib badan baa ummadda haysta ee dhibka badan allah ha ina ka saaro sharafteenni iyo dadnimadeenni allah ha soo celiyo ilaahay qalbiyadeenna ha isu burcad ha isu mariyo ma kala maarmi karno ma kala tegi karnee waxaynu isu nahay ilaahay ha ina garansiiyo xoog baynu leenahay aqoon baynu leenahay ilaahay ha ina tuso dariiqa toosan allah ha inagu hanuuniyo shaqada aynu qabanaynana mid aan ilaahay dartii ula jeedno allah ka dhigo dugsiyada iyo dadka diinta u shaqaynaya iyo ummadda gebi ahaan samaanta iyo khayr ka shaqaynaysa ha la kaalmeeyo oo ha la caawiyo haddii aadan xoog ku tarayn haddii aadan xoolo ku tarayn ha caayin oo ha maagine dacaayadda iyo kadaa macnaha ku dhegidda aad ku dhegayso kulleetiyada wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala barakaatu